قال أنت لك يشغل أنت لك هي تفاقل مركي عامسك إسلام عامسك أي كنتي horta takaaful caymiska markaanu keennay umaanu samayn inaanu dhaqaale ka samayno waxaan arkaynay inay tahay wax bulshada u baahan tahay wali gaari doonaa waqti dhaqaale badan laga sameeyo arrimaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah horta caymisku waxani waa passion oo business ahaan iyo fikir bulsho ahaan 2003 bay igu dhalatay aniga shakhsiyaanoo dhigtaa sanadkii labaad ee jaamacadda marka waxaan arkay in bulshadeena wax weyn ka tari doonto maalina wasiir hore arrimaha dibadda ahaa Soomaaliland soo maray ayaa wuxuu igu yiri cid walba Soomaaliland maalgashada niraahno inay caymis bayna weydiiyaan marka caymiska wallahi waddanku u baahan yahay baahidii dawladda baahidii bulsho iyo dareenkii igu abuurnaa ayaan takaaful sameynay caymiska takaafulku shaqo badan buu abuuray afar waji baan ku abuurnay mid waa direct employment waxaanu sameynay shaqaale badan baan qaadanay oo profitka waxyaalaha badan aanu u sameyn caymisku waqtiyadu early stageska ku jiro waxa weeyaan dadkiiba marketing badan iyo suuqgeyn badan ayaa la sameynaya kaasi waa mid ka labaad cusbitaaladii ayaan iyagana laftigooda shaqo abuur badan ku soo kordhinay cusbitaalka ugu yar qof ama labaan ku soo kordhinay uu adeega dadka caymiska Soomaaliland boqolaal clinic iyo cusbitaal baa ku yaala arinta saddexaad waxa weey geerishada iyo meelaha gawaarida lagu hagaajiyo oo iyagana aan kor u qaadno iminka aad arkaysan saan u lahayn ka hagaajiya maanta geerishiga Dubai ku yaala gaariga lagu hagaajiyo kaargisa ku yaala wasku mid suuq falba isku laha requirements ama baahida caymiska leedika baahan iska hagaaji ka afraadna waxa weeye waa indirect employment ka oo dhalinyar dilaalin caymisa ay meesha yimaadaan shaqo abuur way noqon kartaa laakiin waa dawladda waa nidaam dad badan markii baahidii la arkay hay'adda caymiska la sameeyay hay'adda caymiska Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaale badan baa ka shaqeeya talaftigeedan ku faana anagu hadaanan baahida abuuri lahayn hay'addu ma timaadeen juhdi badan oo galnay sidii hay'adu iman lahayd oo dadku xeer iyo nidaam u kala yeelan lahaayeen maanta hay'adda caymisku waa meelaha ugu muuqa wanaagsan hay'adaha dawladda